الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dadka videoga fiirsan doona dhan waa wada salaamay inta aan fiirsan doonina meeshooda ku salaamay bacda salaam normal GNS3 ga isticmaalnaa softwarekiisa iyo routerada isticmaaleen hoos yaalaan meesha ka fiirsan kartaan. waxaa kaloo jira badnaa softwarada la isticmaalo software kale waxaa jira oo arday soo weydiisay igala soo xiriirtay packet tracer way weydiiyeen waxaan badanaaba kana ka sahlan kana ka fiican kana ka faasisan kana ka casriyeysan internetka ku xiran kartaa laakiin packet tracer internetka kuma xiran kartid. misaal haddaan dhaho okay packet tracer kan waan hayaa aan fiirino Cisco packet tracer asiga waxaa iskale shirkadan waxaa la Cisco iskale packet tracerka balse cilada jirta wuxuu yahay wixiisi khafiif ah. hadda routerka soo jiidta halkan aan dhigo misaal korkiisa aad taabatid wuxuu kusoo kacaya isla meeshii packet tracerkii software yar ay u sameeyaan routerka lagu galaayo kusoo kacaya saarata. laakiin GNS3 ga waxaa kusoo shidan kartaa booty ama waxaa kusoo shidan kartaa SSH inta waa kusoo shidan kartaa software caadi ah kusoo shidan kartaa. sababtana routerka caadiga marka la isticmaalayo kan isticmaalaysid marka shirkada aad tagto kale meel shaqo aad tagto kale router caadi marka isticmaalaysid kan isticmaalaysid waxa la isticmaalayo waxay tahay waa booty ama SSH la isticmaalaa ama website ahaan loo soo galaa labadaas midkood waay. marka kan waa sidaas packet tracerka programka English uu leeyahay laakiin marmarka qaar wuxuu ku roon yahay routerkiisa way tira badan hadda aragtaan 1941 wuxuu dhan router badan uu leeyahay. hadda kan waa latest version packet tracer kan hayo aan haysto waa latest version tan wala 7.2.1 version waa kii ugu dambeeyay kulli sano maleynayo waana free internet ku jira waa soo dejisan karaa qof kastaba. routerkiisa waa kuwan ASA uu leeyahay firewall uu leeyahay wuxuu leeyahay wireless uu leeyahay habis uu leeyahay switch cloud intaba uu leeyahay. wali mararka qaar waxaa soo deedi doonaa video ka sameeyo business video ka sameeyo casharaha ka sameeyo insha Allah. kan waa mid packet tracerka iyo taasal hadda la isticmaali doono kulli GNS3 isticmaali doona. okay waxaa kaloo jiro waxa la dhahayo EVE ina hore uma qeyd iyo kalmoodi EVE wuxuu ku shaqeeyaa wuxuu la shaqeeyaa ama uu ka dhex shaqeeyaa VMware kan dhexdiisa. halkan taabto EVE kan asma power on leedahay routerada yani networking oo Cisco badan hadda waxaa loo isticmaalaa packet tracer ayadaas kale Cisco kale. GNS3 waxaa ku isticmaali kartaa Palo Alto haduu u baahan tahay routeradiisa waxyaabo badan oo lagu isticmaali karo GNS3 waxaana ku xiran kartaa computerkaaga internetka waxaana ku isticmaali kartaa booty na ku xiran kartaa routeradiisa SSH na ku xiran kartaa. wuxuu ugu faasisan yahay waa taas haddaad u baahan tahay inaad internet ku xirto Google ahaan ku sheegto waa gali kartaa routeradiisa. okay kan EVE ga soo kacay IP address ka soo tiisiyo kor hada aragtaan use http 192.168.10.129 waa IP address aniga aan samaystay laakiin kuma shaqeynayo kulay waa EVE-ng default root password oo dhahay is EVE. okay hadda halkan taabto halkan now 192.168.10.129 dan taabto waa kan wuxuu siinayaa sidii loo galay lahay admin taabto EVE waxaa soo router hal mar soo bixin intaas soo router hal mar ashada ka kulligood hal mar soo noqon kara ashada kara. marka kan wuxuu ka gadaysan yahay GNS3 gasna waa more website ahaan aad u galaysaa computerkaaga jaab ma naqanayo badan hada router tira badan waa isticmaali kartaa. hadda waxaa aragtaan meeshaan intaas soo router halkan saaran inkastoo ay shidneen sida GNS3 ga loo shidaa raadkaasina star la leedahay saas aad soo shidaa. halkan waxaa yaala ASA dada fiirisin dhinaca fiiri waxaa yaalo ASA ga dhinaca waxaa aadaya banaanka
outside kuolata inaan ogaada inside waa more advantage way yani gudahana firewallkaas ay tahay kala xiraayo markaas kadib waxyaabo kale asii sameynaya site to site kaa sameynaya HSRP protocol dhinacaas kaloo yaala asna saas uu kala gedisan yahay marka Cisco lemanas wax badan lagu isticmaali karaa haddii aad sameynayso kale Palo Alto oo kale hadda sameynayso oo kale Aruba oo kale hadda waa kuwana fiiri Apple oo kale barnaamijyada waxyaabo tira badan oo isticmaali kartaa kan oo ka hadda ugu tira badan yahay kuwa kale dadka waxyaabo kale isticmaalayo kale oo anfacaya wuxuu kaloo anfacaya Cisco ASA laba xabo haysta ASA ASAP Cisco kasoo tag hoos hadda imaado Dell Sonic Web Software waxaan oo dhan ku jiraan FortiGate F5 load balance Hawaii waa la bartaa network waa isna HP waxaan waa tira badan yihiin way tira badan waxaan oo dhan waa laga baran karaa Linux istiyaa ku dhex jiro hadda waxaan sameyn kartaa Linux aad soo qaadan kartaa oo soo jeedaya waxaan taabanaya markaas ay save tan waa kana Linux waxaa ku xiran kartaa markaas Cisco routers aad ku xiran kartaa asna taasoo leedahay kaasa inaan start leedahay kan start leedahay wuxuu dhan markaa shidid attagaad inta ka sameyn kartaa markaas ay Linux aan u sameyn kartaa dana sida Linux wixii oo dhan internet ku gali kartaa update sameyn kartaa miisaan IP address kan aan server ku jiro VPN aan kayga oo internet oo ka qarsan yahay Linux kiyan galaya internet ku xirnaa isagan waxa uu sameeynaya IP address kale oo turjumayo oo sameeynaya miisaan hadaan dhaho browser kiisa dad fiirsin IP address kiisa waa gedisan yahay halkan dad halkan waa dad 10 waa zamartid IP address waa gedisan yahay outside waxa aaday 10 inside waxa aaday 2 marka waxaan sameyn karaa marka IP address kan outside ka aadayo asii bedelanaya darabo VPN kala sii gelin karaa waxa sii gelin karaa proxy kala sii gelin karaa marka attack soo sameeyay kala wala sameyn karaa taasna ka marka waxyaabo badan ku sahlaya hadda ka maraba keedina maraba kan iga saar bileeda ugu darsamada maraba halkan koorsooyin kala waday marka saasa wax uga gaarsan kartaasna laakiin wuxuu u baahan yahay VMware muhiimadu waa taas EVE-ga waa free wuxuu u baahan yahay ama waxa u baahan tahay xallayay VMware marka Windows ki server ki wixii dhan ku jiraan serverka halka ka kartaa wax dhan ku jiraan VMware iyo kasaya ka baran kartaa wax kasto aad markaa rabtid serverka halka ku sameyn kartaa dayaan xasoo aan ka shaqeynaa routerka ayaa maxas tuugat agoo marka shaqeey awal mara arko ahay inta waa ku tijaabin kartaa halkan ku tijaabin kartaa marka EVE-ga kuwan kala saas ugu faahfaahsan yahay waa packet tracer waa Cisco kaliya lowa GNS3 waxyaabo kala ku darsan kartaa EVE ma waa more advantage waxdan waxyaabo ka sii tira badan ay gashan kartaa ilaan Cisco router la isticmaalo dee shirkaddan Cisco router ay isticmaasho shirkad kala tagay HP isticmaalay shirkad kala tagay wax kala sii isticmaalay wuxuu dhan waa in isku xirmaan same network waa in wada shaqeeyaan marka sales kugu xiraaya waa ay marka waxyaabaha saytii oo dhan marka maadaama training koodina inaa sameeyay ama barashada inaa sameeyay dad u baahan tahay waa inaa ku xirtaa router Cisco iyo shirkad kale waa inaa isku xiri kartaa taas waa inaa sameeysaa kana kule intaas ay tahay ku daray saddexdaas video jirto marka sababta GNS3 u isticmaalayo waxaan rabaa GNS3 dadka markay si fiican u fahmaan in aan soo wareegno EVE-ga ay tahay asna video soo sameeyo doon insha Allah video markaas ay tahay soo kulay soo gudbina marka soo sameeyo iyo qaabka loo sameeyo kana marka soo sameeyo doona video kale packet tracer marka qaar video soo sameeyo doona insha Allah GNS3 10 bilaabi doona kuliyada sameeynaya kan waa grade saddex software la isticmaalo waay dadka packet tracer isticmaalaya GNS3 waa shaqo ku jiro EVE-ga da sheegay waa shaqo ku jiro Linux-na ku sii jira markaas waa kasi tafsiin yahay GNS3 Linux oo ku xiran kartaa laakiin waxa u baahan tahay waxa la dhahay VirtualBox ama VMware kale waa inuu ku sii xirtaa haddaad Apple haysateen waxa u baahan tahay Gate VMware oo ugu shaqeynayo gudaha ku dhex jira Linux Apple oo wato ama Mac Pro ay wataan jiro aad ku isticmaali kartaa